kulankani oo ka qabsoomay xarunta xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa isla markaasina ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaha xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro gudida fulinta iyo gudida anshaxa ee xisbigaasi waxaan uu ahaa shirkaasi mid cod gacan taagay mas'uuliyiinta hoggaanka waa xisbiga wadani ay xilkii iyo xubinnimadii kaga qaadeen mas'uuliyiinta kale ah Cismaan Ibraahim Warsame Abu Bakar Sheekh Xuseen Meecaad Faarax Cilmi Geedoole Xamse Xasan Cabdiraxmaan waxaana xilka qaadistaasi ku sababeeyeen mas'uuliyiintaasi sida ay sheegeen markii ay ka soo horjeesteen sharciyada xisbiga mucaaradka